shirkadda biyo-gelinta iyo qodidda ceelasha dhaadheer ee Nuwako ayaa sanadka 2016 guulo muuqda ka gaartay deegaanada Puntland iyo dhulka kale ee Soomaalidu degto ka qodista ku dhawaad ilaa 10 ceel nooca Soomaalidu u taqaano riigaga. Nuwako oo lagu aaminayo awoodeeda iyo xirfadda ay u leedahay qodista ceelasha dhaadheer iyo tan soo dabitaanka haddii ceelka wax ku dhacaan waxa u suura gashay 2016 inay safka ugu horeeya ka istaagto shirkadaha kale ee qoda riigaga iyadoona noqotay tan ugu badan oo ku guuleysatay tartamada loo galo qandaraasyada biyo raadinta. qiimaha aan u dhibrino iyo ilaa aan ceelka dhameeyno anagu waxba aan weydiin hay'adaha anagu waxba weydiin iyo anagu aan marka hore isfangareyno iyo qiimaha aan jabino oo qiimo aad u jabiyay runtii aan ceelka ku qadno saas aan keenaysa dadku inuu iyo isla markii si habsamiyo aan dadkii ugu fududeyno shaqada maadaama ceelashii hadda markii la saaraabinaya maalin wala shaqeynaa 24 hours waxaan ku guuleysanay qolos waxaan ku guuleysanay laatanaad waxaan ku guuleysanay dandan waxaan ku guuleysanay chilab guulaha bilihii la soo dhaafay Nuwako gaartay waxaa ka mid ahaa qodista ceelal shaqaynaya oo ku kala yaala tuulooyinka kala ah tuulada Dandan oo ka tirsan gobolka Cayn, tuulada Karinkafood oo ka tirsan gobolka Sool, tuulada Xararan oo ka tirsan gobolka Cayn, tuulo Jalam oo ka tirsan gobolka Nugaal, tuulada 22aad oo hoos timaada maamulka degmada Garowe. halka ay u dheereed shaqooyin dhinaca farsamada iyo cilad bixinta ceelal laga quustay kadib markay guuldarro kala kulmeen shirkado hore u qoday balse taa beddelkeeda Nuwako ku guuleysatay inay dib uga shaqaysiiso ceelasha uu ka mid yahay riigga ku yaala tuulada Sarmaayo ee gobolka Sool oo aanan la isticmaalin muddo ka badan 2 sano laakiin hadda ah mid shaqaynaya intii ka dambeysay horumarintii ay ku samaysay dhawaan shirkadda biyaha Nuwako oo noqotay hormuudka shirkadaha. waxa inay balqaadiya kamariga Nuwako anu bulshadeeda waxaan wax ku leenahay baan aragnay ceelka markaan dhameeyno mitraadka qodno kamariga kale kaysin bay ku boobaan isla markii waxay raan wanaga dhigeen kale lacagteena siiso ma sameeyeen ceelka markaan dhameeyno anu kaysinka gelin kaysku markaan wax laga qaban karin ba tijaabinayna horta inuu biyo leeyahay inka horta ma gartaa taasoo kamari kale maanta in ka yeelay dhammaan ceelasha aan qodnay oo 12 ka badan waxaan u sameeyay water tank iyo xiriirinta extension tank iyo xoolo meesha ka cabaan marka animal xoolo sameeyay pipeline meel biyaha ka cabaan fidinta tuubooyinka la gaarsiiyo dhammaan goobaha ay kala duwan bilowgii sanadkan dhamaanaya waxa uu ahaa qorshaha maamulka shirkadu in la qodo ilaa 8 ceel taasoo hadda ka dhigan in guula laga gaaray hadafkii hore loo go'aamiyay marka la eego tirada ceelasha la qoday iyo kuwa socda.